وبرنامجكي sheeko gaaban شكريي أدونكني شخص ولبا وانو أنا شوقا ما أقان sheekada jacaylkiyo shaqalada xusuusta leh sharaxaad baligasi shamaag way caashaqo kuma koobna shay qura ma sharixi karaaye wixii shaakir ka maqan sheeko gaaban kala soco shakal way caashaqo shakhsiyaadka kala gala shar laga dawoobiyo shar iyo nabad mid ku yahay sheeko gaaban kala soco kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii saddexaad ee sheekadii ismadhaanto qaybtii labaad ee aan soo dhaafnay waxa ay inoo maraysay iyadoo amliina ay qaati ka taagan tahay taleefanno fara badan oo ka imaanaya rag gayaankeeda ah oo doonaya in ay mar uun gacanta ku soo dhigaan si ay gacal ula wadaagaan dhanka kale cabdimuruq waxa uu go'aansaday in uu la dardaarmo ilmihiisa si ay karti u yeeshaan waxaana uu ku dhiirigelinayaa in ay dhulka iska qaadaan hurdaan ka kacnay ilaahow adaana soo nabad kiciyey alxamdulilah sabaax alkhayr waa saruur alxamdulilah kiina maanta waa iga maqan yahay meel la aada male habarta yaanyadii qandaraaskeeda duubardubu ku dhammaaday maqorafkiina waa iga dhumay xalay meel baan ugu soo tegey hadda ma iska jiiftaa mise maanta seen yeelaa horta meel la aada ilaahay nooma waayo oo gacanteena ilaahay gacan daanyar ha ka dhige waxaan haddeertaan maanta aan fiirsanayo horta maxaa aniga maanta horta ii talo iskuma kaa sheegtaa layiri sow aniga ubad maan dhalin ubadkayga waa inaan horta aniga waa kusoo tiirii tacabeelay majaha iyo madaxaan ku qaaday yaa duruuf badanaan usoo maray marka maanta waa inaan ayaga u yeeraa horta isugu yeeraa talo iskuma kaa sheegta maanta waa inay ayaga guriga la wareegaan xaaladayda situationkayga markaan waa oday baan sii noqonayaa oo waayuhu waa harka labadiisa gelin marka ayaga markooda waa markaan ayaga waa inaan arkaa horta aawe keena kaaliya haabe horta waraan ii siiyo hayaabe wax walba horta waa dhacaan waa gartay shalay aniga waxaan ahay ninkii oo mataqaanaa hawshii guriga mas-uulkii wixii oo dhan aniga ahaa waa gartay maanta hadduu rabbi kuu roon yahay alyad belyad waaye adduunka aniga markayga idinkana markiina waaye anigu horta fuudi baan ahaa waxaan haystay tala iyo tusaale maal waxaan haystay idinkaan igu tiiriya tacabeelay waxaygana alyoom buu ahaa ma garatay nin weyn oo mataqaanaa wax aruurinayo meel hadba mataqaanaa noloshiisa saas iska nolol ladanna ma jirin waxaa jiray xoog iyo muruq wax la yidhaahdo balateenuna waa shaqay ahayd anugu nin shaqo tegayaan ahaa oo niigu soo tiiriya tacabeelay baata waxaa loo baahan yahay anigana waa iska sii waayeelo waayaa oo xaaladii meel cidleyba sii socotaa umalay idinkuna mataqaanaa idinkaan niigu tiiriya tacabeelay waxaa loo baahan yahay inaad la wareegtaan xaaladan iyo wixii mataqaanaa mas-uuliyaddiina ah waayo markiina waay markan ma garatay mar dhow mas-uuliyadda iyo administrationka guriga idinkuu nigu wareegaya siiba adiga ninkaa ragga ah waxaa iga warataan waxbarashadii iyo howlihii mataqaanaa aad ku jirteen bal iga warama aaba waa fiican tahay horta waa ku mahadsan tahay korintaadii iyo anagoo yaryar inaan barbaarisay oo iskuulna geysay waxbarashana geysay haddeer xaaladdu heer jaamacadeeda mareen oo jaamacadda noo dhammaad noo tahay mahaddeeda ilaahay ka soko horta aab adaas ka leh waxa kuu haray waa halka sanadka jaamacadda noo haray baan adigana kuu haray markaan taa dhammaysano adiguna waad fadhiisanaysaa fadhigaad ku cabaysaa wax kastana fadhigaa lagu keenayaa sidii saas way xaaladdu bay horta ahaanaysaa waxbarashaduna aad bay u fiican tahay inkastoo gabadhan walaashay iyada lafteeda ay fiican tahay haddana waxa weeye markay guriga timaado meeshii laga raba inay akhrisi iyo bugaagtii ay gasho taleefon iyo sheeko iyo waxaan kolley aan fahmin bay guriga dhexdiisa dhaqankeedu yahay sababto ah hooye haddayna joogaan adaa hooye iyo aaba labadii meesha noogu jiray marka anigu waxbarashada xaaladeeda guud saas weeye gabadhana xalkeedu waa saas alxamdulilah inta sanadkaasana ku haray aaba wax kale kuma harin gabadha jaamacadda way tagtaa wax waa soo qorataa wax cashir waa lasoo siiyaa markay guriga ay timaado la rabay inay wax akhrisato oo cashirka xafido oo de hadhow imtixaanka markay gasho kaalin fiican ay gasho gabar taleefon baa cashir u noqonaya gabar aflasan taleefon ka hadlaysa oo mashquul oo hawlo aabe wiilka maanta dhan wuxuu kugu daldalayaa dhageysanaysid been waay aabe ani waa dadaala aab waa iga warqabtaa waxaan bartaa
كولجكنا مردو أب وابو كودا مينا يا حمال كان يفوندي كان دغحان أجيبيني سيد أب أنا كو شقيناي نين كان أب وابو كاغا في عنا تليفوني كو هذا شاو لي أب بنتي سواي أنا يو كاديرا يا أب كولجك مردو وادا مينا يا waxbarashada waa ku dadaalaya aab mardhow waxaan rabaa inaa ii nasatid oo aniga ku shaqeeyo xoogayga cuntid ninka aab way u kaadiraya beentiis waa aniga ku ogahay inaa aabahay tahay wiilkan walaalkay walaalka aab way u kaadiraya iga celi isaga xitaa habeenkii darbigu aab ka soo dhaca moogido horta dhageysta waxaa loo baahan yahay in la iska warhaayo mar walbo mideeda kale anigu gabadhaas gabadho waxaan ku sheegayaa iskuulka baro waxbarashadaadana si toos u wado mideeda kale muruq la sheegaya iyo telefonka ku hadlaysana iska jooji ma ku hadli kir saacada laga bilaabo kuma hadli kir adigana darbiga ka soo dhacayso la sheegaya jooji waa sax way hadda kadibna dabagal baan igu sameynaa haduu ilaahay yiraahdo waa sax way telefonka horta in lagu hadlo oo qofka dantiisa muhiimka ku dhamaysto waa caadi laakiin in casrikaaga akhriskiisii iyo danaha wixii lacagtu kaaga baxdo waqtigu kaaga baxay inuu ku dhaafiyo umaan diidayaa macnaha telefonka markii aabba wacayso iyo markii ayeeyo wacayso iyo markii abti wacayso telefonka qofka cidro wacan kara laakiin muhiim in fiidka inta guriga la gasho 6 saax habeen ay ku gaadho waxaas wax macquul ma wax la yeeli karna ma waaya saas iskogna fatashuru fil ardi hayaabe kaalay ninkan walaalkay ah haduuba sheekadan bilaabaya telefoonay ku hadashaa gurigay la gashaa habeenkana telefoonkay ku hadashaa ya ina iska ilaaliyo waa qofkan ya bes waay markaan had wixii ka dambeeyay aabbo igu diraaya maalin walba waxaa la idhaayaa telefoona ku hadlaysay wax ma akhrisid xaaladda aadan madharge waxa ay maraysaa meel xasaasi ah waxa ayna dhibaato ka haysataa xagga guriga isaga iyo fariido oo ah xaaskiisa ayaa waxaa dhex maraya dood aad u kulul oo dhanka qoyska ah waayadan waa yaabanaha ma waxa weeye magaalada busaaradi ka jidhaa ma dalkii baa sida noqday ma ninkii aadan ahaabaa dib u soo xumaado xoolihiisina aan la aragoo jeebka ku shubanaya kiradii waa nala ku leeyahay oo iskoolka ciyaalka waa lagu leeyahay yaa soo garaacay tolo ma qoladii kirada nagu lahayd baa mise waa qoladii waa isagii weeye haye wacalaykum assalaam ma wanaagsan tahay waa wanaagsanahay waaba aragtaa inaan wanaagsanahay maxay tahay waxa kaa yeerayaa gurxanka iyo sawaxanka iyo waxa guriga ka baxaya waa maxay miyaan meesha nabada ka jirin intaan hoos lagu oraqad dhamiya gurxan waa jiraa wuxuu gurxan u jiraa guri dhanoo reer nin dhanoo reer loo caruur leebaa tahay oo mas-uula maxaa guriga kan ugu talisay gurxanka kaa baxaya waa oranaysaa horta xabibi su'aal baan ku weydiinaya mar kastoo aan imaado macanaan baa reerku miyaani marna deganayn oo ay nabada meesha ka jirin mar walba aan soo galo waa ay cuntaa maxaa jira horta hadda day walaale cunis ma taalle waxa way ninku reerkiisa hadduu ka warqabo qayla ugaba imaan mayso hadduusan ka warqabinoo keerlaysa yaa suuqa ka galo qaylasi waa imaanaysa maxaan qabtaa hadda maxaa daran maxaan qabtaa sida waxa qabataba ma garanaysid sida reerku u lacag la'yahay baa anna u lacag la'ahay waddankeena lacag la'aantu waa mid wada saamaysay gebi ahaanba waddanka oo dhan bay ka jirtaa horta waa gartay horta taa qabso haye tan labaad anigu ma dadaal yiri laakiin waxbaa soo qaban la'ahay salaadkiina waa bar markaan kaco lacag baan ku jirmaadaa haddana anoo weli la oo faramaran baa soo laabataa hadda nin weyn baa ilaahay kaa dhigay waxa la nin durbaantu waa cilaaq dalbaye fiiri caruuraa meesha jooga iskool bay dhigtaan asmac caruuraa meesha jooga iskool bay dhigtaan guri kiraa baa lagugu leeyahay aniga dumar fara badan oo lacag igu le baa jira guriga waxaan uga tegey waxay ahaayeen islaamka lacagta igu leh su'aal kale baan ku weydiinayaa gabadhii ii timi shalay ee lacagta ii qabsatay maxay ahayd maxay tahay gabadha dee alaab baan ka qaatay oo ma alaabaynaan ogeyn baa qaadatay anigu aan ogeyn baa qaadatay maya waxaan qaatay alaab dumarku og yihiin maxaq baa adiga wax walba aan samaynaya inaan ku raado waxaasan sameeyey haddeeraad ogaatay waxa weeye gabadhu lacag bay igu leedahay wax naftayda aan uga baahanahay baan kaga qaatay bixi oo kiradii iskoolka yeelaynaa anigu shalay markaan soo laabtay guriga waxaan ugu imid ciyaalkii oo jooga wiilashii oo kollejka laga soo cayrshay oo bilaa lacaga gurigii oo bilaa qada ah adigiioo maqan islaan igu qaylisay oo lacag ii qabsatay telefoonkaygii baan siiyey dabeedna kama qaban xaalado dhan way soo wacaysa annaga xaaladahaasoo dhan adaa keenay waxaadan adigu keenina ma dhicin nin weyn baana tahay ninka weynna inuu mas-uuliyad isa saaro baa wanaagsan waxaa tiri 6 aroornimaan baxay xaggee ka keenaa qofka hadduu careless yahay uusan reerkiisa iyo gurigiisa midna ka fakarayn dee maba garan kara markaa meel ka keeno dhegeyso careless anigu miihi anigu shaqo raadis baan ahay insha allah shaqana waa la helayaa waana soo dhowdahay waxyaabo badan baan ogahay wiilashiina college waxa og tahayna rabbi hayna siiyo waxa hadeer yaal xalka u baahanna inaa xaliso baa laga rabaa just know waxa soo socdana rabbi haynoo keeno hadda waxa way hadaadan xal hayna xaaj runta ku sheegay wax la isu qarinay meesha ma yaalaan reerku sida tan ku samaan maayo oo maxaa qorsha maxaad samaynaysaa hadda reerka hadii loo talin waayo waxay la tahay waa laga tashanaya
maya waxbaa jira shaqa raadis baan ahay shaqana waa soo dhowdahay annaga waxaas inama anfacaan ninka haddeertan taagan aan daboolin tu soo socotana ma dabooli karo haddeertan taagan reerka ka taag war aqoonyaha kaada isu hadda aqoonyaha tahay maxaa aqoonyaha la tahay gurigaagiina kira kama bixin kadhid caruurtaadina iskool kama bixin kadhid wixii naagtaada lagu leeyahayna ma dabari kadhid aqoonyahan baan ahay ma afkaan mooda in laga yidhaahdo aqoontaada ma dhulka lagaga shaqayso la tagto haddaan raba jaamacadahan wax ka dhigi karaa haddaan raba ma garanaysaa meel kasta waa ka shaqayn karaa nin aqoonyahanaan ah aqoonyahan baan ahay de wax ma qabato afka aqoonyahan baan ahay dadkoo dhan waa wada aqoonyahan baan ahay wax ma qabato ee reerkan ma u talisay mise waa ka tashanaa waa la iska khayrayaa gabadhiin anaa kaala hadlay adiga ku doonaysay anigaa kaala hadlay anaa kaa leexiyey telefonkaygaana u sheegay anay ila soo xiriiraysaa waxba cidi kuma haysato maya waa ii sheegtay gabadhu saakay bay ii timi waxay ugu tiri ninkaagina telefoonka waa iga qaban waayo waabay qabsatay gabadhi ee waxa weeye reerkan u tali ama aanu kaa tashanna aniga iyo ciyaalka haye saasaa inoo ballana see inoo ballana macnaha saasaa inoo ballana aniga anaa iga taqaani wax walba mas-uuliyadda reerka anay saaran tahay anigaa taas ballan qaaday waana waajibaad ilahay isaaray weeye maaha mid adiga hadda ii sheegaysa oo ma haddeeraa fahantay horey maxaa ugu fahmi weyday taas in waajib rabbi ku saaray inay tahay bal horta qolkaaga jiifka tag waa ku imanayaa war ilaan annaga dhibaato badan ah waxa weeye meel kasta waana lakaga qayliyey guriga waa kan islaantii waa kacsan tahay ciyaalii kollejka waa laga soo cayrshay tii lacagta ku lahayd xaalay dhanba isoo wacay telefoon kama aana qaban see yalla bal ii kaadi waxbaan nin weyn baa alla iga dhigaya waa tashanaya marka bal ninkii cabdiraxmaan ahaa baan wacayo walaalkay ahaa bal inaan si lacag deynaya aan uga sii qaato haddii uu maxaa nambarkiisi waa yab badanaa lacag xataa nooguma jirto see yeellaa ilaahow yaa badanaa dhinac walba waa naga soo xidhantay lug baan ku raadinayaa lug waa inaan reerka wax keeno maanta intaan nin weyn iska dhigo waa inaan xal keeno dumarku wa hawlaha adduunyada hilin loo maraaye dumarku wa hawlaha adduunyada hilin loo maraaye waa kuwa haliyaynina nacaso hormariye hanti kugu jeclaade waa kuwa haliyaynina nacaso hormariye hanti kugu jeclaade uqda iyo dhibaatada kugu soo hagaaji uqda iyo dhibaatada kugu soo hagaaji dumarku wa adoo haraadan biya ku hiraaye dumarku waa hediyadayaan ku kahari waaye dumarku waa adoo haraadan biya ku hiraaye dhanka kale cali danayste waxa uu xaaskiisa saafi ka dhaadhicinayaa in ganacsigiisu yahay mid aad u wanaagsan isagoo haddana beerlaxawsi ku daraya saacid haye maxaa haysaa nabad haye khayr iskoolka ma ka timid haa waa iskuulkii dugsigii waa dhigtaa kaalinta koowaad inaan ka galaan rabaa iskuulkana haye hadda kaalinta koowaad waxbarashada in lagu dadaalaa la rabaa waxbarashada ma ku dadaashaayo wax ma akhrisaa haa way ku dadaala kaalinta koowaad inaan galaan rabaa ku dadaalaa waxbarashadana haye waxbarashada ku dadaal waa ogtahay aabbahaa siduu kuugu dhiirigeliya waxbarashada waryaa oo maalin kasta uu ku dhaho ninkan uu lacagta sii uu dhaho maalin walba lacagta sii uu dhaha dhar buu kuusoo gadaa waxbarashaduu kaa bixiyaa waxaa la rabaa waxbarashada inaad ku dadaashid ma garata hooyo haa hooyo si aad kaalinta koowaad u gashid qofkii wax bartaa ayaa wax hela soo mogid waxbarashada ku dadaal aabbahaana anaa mar walba la hadlaayo waxaan leeyahay ninkan waa nin fiican waxbarashada ku dadaalo waxbarashada iskoolka keliya lama rabay dugsi qur-aankan in aadaal rabaa oo masaajidka aadid masaajidka ma aada ayaantaan salaada tuko haa salaada tuko haddaad tukan weysay aniga iyo adig waxbaana dhex maray ugu salaada aad saasaa lagaa rabaa saasaa isku ognahay haye wallaahi
ninkii cali danaysta ahaana ma imaanine cali danaysta wuu ka xanaaqaaye laakiin dee anigu kuma dhahaayo kulley dadkaasaa ku dacayadeeye ayaan dhoweyd waxyaabihii uu ku hadlaayey ninkaas aniga waa ka shakiyey daawo dhacda iyo raashin dhacda iyo taleefon baraaziil iyo waxyaalahaas aniga waa ka shakiyey ninkaas ma wuxuu rabaa inuu waxaas ka ganacsaduu rabaa bisinke ilaahay naguma keeno ummadda la halaajiyo oo ummadda daawo dhacda loo soo dejiyo war ummadda waxaas in laga digaal rabaa bismillah nin saas ah aniga asiga ma wada joogin reerna uma noqonayo ilmana uma haynayo mana xaaskiisa ma noqonayo mana iqabaayo yaa waa ka wada hadli doonaa kulley maal dhowd wuu iga qariyey hadda kulley dib baan u weydiin doonaa daawo dhacda iyo howlahaasi bismillah ilaahay nooma keeno subxaan allah wallaahi arrintaas haddee jirto waa arrin la yaab leh wallaahi waa fakeray laakiin waxaa laga yaabaa inay saas u jirin aan u fakaraayo oo sida ugu sheegay ee tahay ninkaan nin weyn waayo kuma ogeen arrimahaas iyo musuqmaasuqaas iyo waxaas iyo kuma ogeen laakiin bani aadan waayo way ka suurta gashaa waa inaad dabagal ku sameeyaa laakiin arrintaas waan dabagalayaa haa waayo waa xaaji see tahay السلام عليكم وعليكم السلام اي ورن صافي عدي صافي قروحي اي ورن اي وافي انا horta waxaan u malaynayaa naag ka qurux badan Soomaali geeska Afrika Afrika oo dhan Aasiya ku dar waxa la yiraahdaa Latin America ku dar kulli meel kasta waa maray waxaan tagay Brazil oo waxaan tagay Taiwan oo waxaan tagay Russia oo waxaan tagay America oo waxaan tagay meesha la yiraahdo Japan ma ragtaa tagay intaan marayay maba arkinba adduunka maba laga helayaa u malaynaya maba laga helayaba war adigan ku qurux badnahay leefatii uu ka helo buu hablaha hooda ku sheegay ay qurux badan ma adduunka oo dhan baad qurux badan tahay adduunka oo dhan sababtoo mar aan la kulmay nin ganacsadaha Japanese oo alban sawirada ku jireen wuxuu qofta xagga ku nooshay buu yiri sawirkaagu arag wuu yaabay wuxuu yiri war qoftan xagga waxaas oo dibaashada waarini dadka Japanese gaana saaxiibana ka waran hadii gaal ila yari uu dibaashiga yahay ka waran aad ba u maasada maanta aad ba u faraxsan tahay waa faraxsanahay kawdi shaqadii ka waran waxa alxamdulillah weey shaqadii waa kala socotaa waxa la yiraahdo markabkii maalinta dhow ee kaala hadlayo Brazil ka imaanayay wuxuu sidaa bariis iyo bur iyo shamiinto iyo daawo iyo wax kasta waa saaraya waa markab weyn weeye marka waxa la yiraahdo aanu eerayahay ma aanu cidna aanu cidna lama shirgoobo waa ay taqaanaa aniga waxa la yiraahdaa darayd astaghfirullah macnaha waxa la yiraahdo iyaga khaladkii wixii afka noo galiyeen wixii daray sheegi jireen meelaani xaaj cali baa la yiraahdaa nin isku filan baan ahay nin ganacsadaha ahay hadda waxaan rabaa inta markabkani soo socdo inaan mid kala dalbo baan rabaa sababtoo in badan baan shaqaynayay mideeda kale waxaas oo karti ah iyo waxaas oo hanti ah iyo waxaas oo shaqo ah iyo waxaas oo lacag ayaa sabab ma taqaana yaa ma taqaana saafi aday baa waxa la nin kasta oo fiican naag fiican ka dambeeso waka soo moogid waa qaacido aad dad ma yaa taqaana waxa ka dambeeso oo soo barbaarisnaa wanaagsan ka dambeeso marka aniga ka dambeeyay kulay taladan wax waa lagu wadaaga waa la isku leeyahay adiga maxaa madcilinaya nin fiican tahay waka ma sameynaysa alxamdulillah way wax soo isku fadhiya hawshii aan kala hadlayay waa anigii rabay mar inaan Finland ku geeyo mar aynu israacno marka kiisi iyo waxba ku sameynaya mar baynu hadii Allah adigana shaqadaana ku wareerisniyo mar nooma iimaanaysido nuzha iyo meelahaas daldal dhixiis iyo nama geenaysid lacagtana way ka badatay hadde markay dalxiis mar alla markay dalxiis maqashid baa aduguna hadda qalbita taqada ana ku xasuusiyay boogta hadda ma waa rasuul sallallahu alayhi sawi gorma noo balana markaa bisha dambe hadii alla idmo adigu waxa la yiraahdo qoliyihii baan u dirayaa ayagan maaragtay fiisa ka dalbaya marka Thailand baa tagaynaa mise meel kale Finland baan tagaynaa aakhirka isbuuc dhan baynu ku soo noqonaynaa mustaqbal dambeynta sanadkeenu waxa weeye waa Paris baan ugu dambeey ka casheereynaa dul badan baynu maraynaa dul badan baynu maraynaa Finland waligay uma taginba dul badanna waa tagaysaa Venezuela waa tagaysaa hadii alla idmee Venezuela saweeye xaaji soo dhawaaw marka saasa noo balana waxa sameynaysaa iga waran ninkii saacidaha
ورنيكي ساعدها واني اللباح هذا اللباح دلاه ما ninkaasi waa nin adag weeye ninkaasi waa nin adag weeye waa ninka mustaqbalka raba booskayga ninka booskayga galaya weeye mustaqbalka maanta wuxuu sheekeysanayo waxbarashada iyo ka warnaa irbuugtiisaan fartiisana waa qurux badan tahay hamina waa leeyahay waa ka ma ninkaasi nin adag weeye barqaan dhalay ninka ninkaasi qofka hadduu hami leeyahay wax weyn waa soo mug ninka ragga waa inuu hami leeyahay marka wuxuu yidhi kaalimaha koobaad iyaan rabaa inaan galo oo waxbarashada oo ku dadaalaya masaajidkana waa aadaan ka waran gabadha ka warhay gabadhu waa adduunkii waxa lagu jira akhrisoon bal wax kasta khatartiisa gabadha ilgaara kula soo gabadhi waa hooyadeed bal kulli adaa dhalay oo waxa la yiraahdo umarnay kama shakisaniye oo waa ina saafi cadeey gabadha ka warhay ma ku riga waayahay xaaji aad baa ma sida qadadina hadda waa ku diyaariyeeyo waa kaasiyo soo dhawaad daqadeeyo ma yada يا والله حاجي أنا فيلان أكو جينا ولي بفيلان ما أركن بقى والله وإيجش يا ورأريمان عن شيء يوحان مجرانا أملينا وكونتربانك يوحان دوّد دعضي وحان سلاي بين وايو نيدي واي مركا وإيجش والله وإيجش بين وانا شكي سنة نيكي أنا سوجي دنا أنا أقان وفكرة يا نيكا رجع أنا هكتي سوجي تاليري أملينا waxaa ku mashquulsan dhalinyaro gayaankeed ah oo aad u baadigoobaya waxa ayna cabsi ka qabtaa aabbaheed cabdimuruq iyo walaalkeed iyadoo loogu hanjabay in lala socon doono dhaqdhaqaaqeeda xanibaadna lagu soo rogi doono taleefanka waxa ayna go'aansatay in ay la tashato saaxiibteed sagal oo ay isku sirqarsadaan naheeda sagalay ii waran waa waray sagal ayaamahan qurux kaliya noqotay aad bad u qurux badan tahay sagalay ayaamahan waad isbedeshay labadan bari aan ismoogeen ii waran saaxiibay maxaa ku helay ima soo wicin ima aadan imaanin maxaa ii nacday saaxiib ani qofka kaliya aan saaxiibka la ahaa waa adigana kuma hayo walahi ablinoy waa mahadsan tahay abaayo horta waxbana iguma soo kordhine maalmahan ayaana wada kulmin marka sidaa daraadeed waxa u malaysaa inaan u malaysay inaa wax ugu soo koreen ka gudub bal iga war arrintaada maalmahan kuma arkay saaxiib sagalay wad ogtahay aniga saaxiibka kaliya aan lahaa waa adiga aad baan ku jecelahay qofka kaliya maskax ii ah oo aqligaygana aan ku biiriyo wax ii sheega aan wax u sheegto sirteeda dhan aan ku qarsado waa adigana waan ku waayay dib ma lahan saaxiibay arrimo badan ba ayaamaha ila soo dirsay waa ka xumahay abaayo horta maalmaha waa iska mashquulsanaa ha iga malaynin inaan arrimo kale kaaga mashquulay okay maxay yihiin arrimahan waa ku ogaay sagalay ani adiga dad saaxiibo aad isugu dheereeyaan nahay kaama filanayo inaad si kale iga mashquushay waxaa soo kordhay sagalay gurigii horta ninkii aabbahay ahaa yarkii walaalkay ahaa baa igu diray shit saaxiib wallaahi meel kasta problem baa ka taagan oo muxuu rabaana aabbahay buu ku leeyahay maalin walba lagu dhahaa gabadhaada telefoon bay ku hadashaa niman bay la sheekaysataa teeda kale wuxuu yidhi aabba casharada ma akhrisato waxba gabadhaan aabba kuuguma turna beri waxba kuma tarayso aniga ma ogi aabba nin kaloo maanta aad sugaysid ma lahan waayo gabadhaan habeenkiina telefoon bay wuxuu yidhi ku hadashay habeenka dhanta guriga waxaa ka yeeraysa kulahaa dhux telefoon hadal wallaahi abaayo amlina inuu saas yeelo ma ahayn laakiin odaga laftigiisa inuu kuu dhagaysta ma ahayn runtii wiilka walaalka waxaa la rabay inuu idin dhexdhexaadiyo laakiin sababahaas maxaa keenay casharadaada inuu arrimahaas ka hadlo walaalka xogaa looma baahnayn la hadli karaa anigu qofka waalidka ah markuu walaalka ka weyn ama qof kale xitaa qaraabada iyo dariska kor haduu waalidku u waramo uu qaadanaya waalidku way adigu qof yar baa ta lagu rumaysanayo aabahay waxa walaalkii uu ku yiri gabadheena aabo way dadaashaa laakiin buu sida aan ka filanaynay ma ahan way casharada ma akhriso mar waliba telefoon bay ku hadashaa rag bay la sheekaysataa college-ka way u gambisaa waxyaabo noocaas aab uu igu qeyli aaban waa garanaysaa waa nin iska miskiin oo xamaalka aragtay shaqada aragtay isagoo busy u imaanaya kulli amlina istaji saaxiib waxaas waa galeynaa arrimahaas runtiina abaayo waxaaga inaa akhrisato casharadaada waa muhiim laakiin taleefanadan iyo wararkan baaba waxay yihiin kuwa la yaab leh laakiin qofka dad waa la hadlaa maxaa taleefanada awalba telefoonka waa lagu hadli jiray ma dad baa ku wareeriyey see waxay jiraan muxuu wax ku dareemay isaga horta sagalay waad taqaanaa qof aan isaga ka sheekeynayo ma tihid aad baad ii garanaysaa ma fahantay laakiin waxa jira waxay tahay aniga telefoon waan ku hadlaa laakiin college-kayga waan aadaa teeda kale waqtiga iskuulkayga xitaa waan ilaaliyaa oo waan ku xisaabtamaa casharadana saaxiibay waaman isla akhrisanaa waad ogtahay waad iga warqabtaayo dad intaa wax wada akhrisanayna soo manihin laakiin dhibka jira wuxuu yahay telefoonkaana wuxuu igu noqday siyaado waayo telefoon baa ayamahan ku hadlaa saaxiibay kuma aanan waramine aan ku warramo horta marka koowaad bal ii waran oo saaxiib warka isii waxaa kaa soo fakfakanayay
telefono iyo waxbaa jira maxaa weeye waxaas arrimahaas oo dhan laakiin saaxiib waa iga qarisay alla saaxiibay waa ku warrami lahaa laakiin de anna jaanis waan waayo aaban ka baqay ayamahan guriga jooga waan soo bixi waaye telefoonkana intuu aaba joogo waan iska ilaalinayna aad ugu hadlo saaxiibay waxa soo wacan niman aanan garanaynin iyo kuwa aan wada garanayn ani adigaba niman oo nimanku maxay yihiin yaan ka garanaya aniga saaxiib isha na Yusuf iyo Ahmed iyo rag kale oo aan garanaynin baa kamid horta Yusuf waa taqaana Ahmedna waa taqaana waa rag college ka dhigta qaarkood ma wada garanayn ani adigaba laakiin saaxiibay Yusuf iyo Ahmed iyo rag degdeg badan ma ahayn marka maybe inay mustaqbal ka rabaan laakiin ragga inta badan isku jilcunayaysan ka dareemin hadalka jilicsan ma dareemayaan raggan jilaac iyo waxyaabaha qaar wad garanaysaa aniga amliina la dhahaa ragga qaarna sidan u galo wad garanaysaa sagal yani adigu isku dabeecad baan nahay waxaan ku saaxiib iiga waran bal marka ku soo wacaan maxay ku leeyihiin ma inaan kula kulanaan rabnaa bal maxay ku leeyihiin dhishay saaxiib waad garan kartaa rag ku soo wacay maxay kala doonayaan inay kula hadlaan kula sheekaystaan haasawo lagula galo caaw dhan telefoon lagugu sheekeeyo anigana qof cod dheer baan ahay waalidku wuu imaqlayaa saaxiib waxaas iska daa nimankan iyo waxaan telefoonada ha ka qaban runta u sheeg nimayo anigu ardayad baan ahay odaga iyo reerka iyo problemna inuu soo dhex kala ma doonayo haddaaba walaalkii kugu kacsan yahay oo maaqan odaygiiba kugu diray marka nimanka telefoon runta u sheeg waxba yeysan niyada u gelin inay kula sii hadlaan amlina abaayo runta u sheeg waxa waaye waxbarashadaada inaa wadatid baa muhiima in xilligan uu cunug yar oo kolleejka dhigta uu beenku u sheegana ma ahane yaa laga caqli badan saaxiib horena waa ogaa inaad tahay qof adag adiga sagalay aad baad u mahadsantahay waa waxaan kugu jeclahay oo aan kugu doorto caqligaaga iyo weliba inaanay adig wax badan iska kaashano kowdhe naagta liraa sagalay horta ragga isoo waca waa labadan ka garanaya waan kuu sheegay raggaasna qaarna horta been baan u sheegay horta ninkii Axmed ahaa waan la ballamay Yusufna ballan been aan u galay midna waan ballamiyo ballan been bay ahayd midna waxaan ku yiri waa maqanahay safar baan jiraa kuwa kale mid waaba ku damiyeyba aniga horta ragga isku ma jilciyo mana iga arkayaan teeda kale aad baad u mahadsantahay waxbarashada inaan ku dadaalo heer sare aan gaaro ilaa aan jaamacad ka dhameeyo oo waalidkayga dhibka waad aragtay maanta dhibaatada in noloshu aabahay ugu soo koriyay inaan u abaalgudaan rabaa oo aan dadaalo waa runtaan saaxiib sidaas sameey waxa waaye beenha u sheegin laakiin telefoonka runta u sheeg runta loo sheega qofka waliga beenha u sheegin runta u sheeg kii ku dhibo maahane runta u sheeg waxa taraa saaxiib aniga time idin ma hayo ardayad baan ahay xilligan aniga diyaar uma ahay inaan xiriir sameeyo marka abaay sidaa sameeyo waxbana telefoonka iyo meel baan jiraa dhihin waxa laga yaabaa inay iska kaadaayaan because of adiga inay ardayada baa tahay marka nimankaasna waxba ma hayaan ciyaal college waaye maxay ciyaal college ku jeegayaan xilligan ها وصح سجلي وحبي هرتي ugu soo kordhay nin college maanta aniga la dhigto anigoo kala ah waan dareemayaa wuxuu yahay qaar aan been u sheegay iyo mid aan been ku diray iyo mid aan balan been u dhigan ka dhigayba maba doonayo inaan la kulmo inaan barto inaan dhex galo waayo anigu qof hadda waxaan ahay u soo jeestay inay wax barato horumar gaarto waalidkeediina anfacdo waana mahadsan tahay taladaada wanaagsan aad baan u jeclahay waan soo dhaweynaya haye saaxiib anaa ku soo wici doono insha Allah waa isku imaanayna abaay walaalna iska dajiyo iskala hadal saaxiib ka dhigsiyo odaga kaaga dajiyo ma fahantay aad baa maasantahay sagalay laakiin sidaan oo kale ha sameeyno isoo waco aan iska warqabno waxaan ku iri xitaa message-ka igula soo hadal maxaa kugu dhacay adiga ha aamusin haye abaay haye ama hawl baa igu haye saaxiib aad baa maasantahay haye bye bye marka guudka loo dabo maxa gadabtaa marka guudka loo dabo tirsadan u qangaagaya kuu soo baxo tirsadan u qangaagaya kuu soo baxo dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybtii saddexaad ee sheekadii ismadhaanto ee aad kala socoteen idaacadda daljir inta aynu ka gaarayno qaybta afaraad waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo